marka hurdada iyo dhimashada cilaaqa ka dhaxaysa oo qofku xalay 5 saacadood ama 6 saacadood uu jeefay nafsadaadu meel ay jirto kama warqabtid meel kastana way ku dalooshay kii ku ilaalinaya waa ilaahay jalla wa ala malaa'ig ba qofka bini aadamka loo soo diraya oo habeenkii xasharaadka dhulka marmarayo dhan ka ilaalinaya sanku uu ku daloola afku uu ku daloosha ishtu way ku daloosha waxa soo dhan ilaahay ba bini aadamka ilaalinaya marka waagu markuu bariyo nabigu wuxuu ku ducaysan jiray alxamdulillaahi alladii radda calaya ruuxii wa adina lii bidikrihi ilaaha waxaan ku mahadiyaa ruuxdii aniga igu soo celiyay xuskiisii daacadiisana inaan cibaadaystay ilaaha ii idmay ayaa mahadlabu nabigeena oran jiray calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed oo dhan calayhi salaatu wasalaam dikri bay ahayd hadduu jiifanayo bismika allaahuma amuutu axya ilaahu magacaagaasaan ku dhimanaya waayo hurdadu waa dhimasho yar weeyaan oo qofku habeenkii 6 saacadood ama 5 saacadood meel naftiisu ay jirta kama warqabo xadiis waa kii nabigu lahaa annawmu akhul mawt wa ahlul jannati la yanaamuun dhimashada iyo hurdadu buu nabigu waa walaalo weeyaan ahlul jannada haddii ay galaan ma seexanayaan buu rasuulku yidhi wa adduunka dusheeda maxaan u seexanaynaa inagu hurdada waxaan u haysanaa raaxa inay tahay hurdadu raaxa maaha waa nasasho weeyaanoo tacabka qofka maalinkii soo gaadhay ayaa ilaahay ugu talagalay habeenkii markuu jiifto in tacabka lagaga qaado lagaga bixiyo